نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، عباد الله، خطبتي hore waxaynu kaga soo hadalay bulshada guud ahaanba baahida ka jirta in la daboolo, taasoo ka mid ahayd cibaadooyinka ilaahay waa nagu addoonsaday iyo xuquuqda addoomaha la siinayo. khudbadeennan maanta xaqaa hore mid ka soo yaro dhow ayaynu kaga hadlaynaa, oo xaqu lqaraaba aw xaqu raxim, raximka iyo xaqa uu leeyahay. waktigan waxaynu u dooranaynaa kelmadda waktiyada duruufaha noocan oo kale jiraan. dadku waa waktiga ay isu gurmadaan, ama isu soo safraan, ama ay waxise soo moodaan. oo dadka qaarkood oo laga yaabo waktiga barwaaqada inaanad arag ayaa waktigan xaaladdu ay adag tahay yidhaahda ehel halkee kugu dhowey, ma magaaladii, ma ina hebel, ma ina heblaayo. kadibna waa la isu safraa, qaar booyad biyaa doonaya, iyo qaar raashin doonaya, iyo qaar dawo doonaya, iyo qaar gurmad kala doonayaba. marka inaan la isu aamusine laysa saacida kii dabadda lala hadlaana uu dhiiqo oo wax soo kordhiya wixii hore wax ka badnaa. dadka guduhuna deeqdooda ay kordhiyaan, weliba dadka magaalada jooga oo haystaa. aynu eegno qaraabada iyo raximka miisaanka ay shareecadu siisay. midka labaad aynu dooranaynaa waxa weeye dadka Soomaalidu qalad bay ka fahamsay raximka. raximka waxay u haystaan kaliya tolka uun. dadka tolka la yidhaahdo ee ay ku abtirsadaan ayay ka u fahamsan yihiin inuu raximku inuu yahay, laakiin sidaa ma aha. saddex dhinacba uu noqonayaa: qaraabadii xagga aabbo, kuwii xagga hooyo, iyo kuwii xididka. saddexdaba waynu dilaa ka way kaga siiyaan dadka aan hagaagsanayn ama gefsanayn, dadka xagga hooyo ka soo jeeda ama xagga xididka ka soo jeeda. kuwa tolkana way u dagaalamaana way u heeliyaan. waa qofkoo labadiisii waaxood midna nabadgeliyay midna dilay ayuun baynu ku tilmaami karaynaa. marka qodobadaynu ka hadlaynaa waxa weeye in la xidhiiyo qaraabada miisaan intee lag bay ku leedahay shareecada. nusuustaynu ka arki xigmadda iyo faa'iidada ku jirta xidhiidhinta qaraabada iyo raximka maxay tahay. qofka cuqubo intee laag buu yeelanayaa qofka xidhiidhin waayo dadka qaraabada ee xaqa ku leh. waciid iyo hanjabaan intee laag baa kusoo aroortay. waa kuwee qaraabadu? waabaynu soo sheegnayba. kayfiyadda loo xidhiidhinayaa waa noocee? sababahase keeni kara goynta qaraabada maxay yihiin? kuwaasaynu wax ka taataaban doonaa. marka u horeeya qaraabada xidhiidhinteedu waa waajibaadka ka mid a. marka iyadoo ilaahay uu israacinayo miisaanka ay ku leedahay qaraabada xidhiidhinteedu shareecadeenna ayaa rabbi qur-aanku kaga hadlay. lafdigaa lafdu raxim buu si gaara u xusaya. markaasaa rabbuna waxa uu leeyahay suuratu nisaa bilowgeeda: yaa ayuha nnaasu itaquu rabbakum aladii khalaqakum min nafsin waaxida wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. إلهي كعب صدق حديدك إلهي قويننا إلهي وحسكو ويدي سنسان والأرحام قرابتنا هقويننا يدنا وحبا اسكو ويدي ستاني. مركا حديدك هذا إلهي إلا الله هيدبا إلهي وراعي إبا إلهي حديدك سهقويني إلهي ومضى وحكو ويدي سنسان. qaraabadana xidhiidhkooda ha jarin ilaa marka aada wax weydiisanayso waxaad leedahay ilaahay baan kugu dhaariyay ama wax kugu weydiistay iyo sokeeyanimada aynu nahay ama xigtada aynu nahay. dhaqanka dadka islaamka waa kaa yeedhmadaa ilaahay ajiibeen. haddii dadku ay dhacdo inay qaraabada gooyaan, waa hadday ilaahay iyo diintiisaba ka gacan taagteenoo ay noqdeen dad caasiina. fahal casaytum in tawallaytum an tufsiduu fi lard watuqadicuu arxamakum. waxaa dhab ah buu ilaahay haddaa ilaahay kasii jeesataan oo xidhiidhkiisa goysaan, dalkana way idin fasahaadin doontaan oo macaasi iyo gafaf bay idinku fasahaadin.
qaraabadana way idin goyn doontaa. maxaa laga dhaxlayaa markaa? ulaa'ika aladiina lacanahum allahu fa asammahum wa acma absaarahum. waxaa dhacaysa markaasoo raadka ka imanaya uu noqonaya dadku waanay indhabeelayaan, waanay dhagabeelayaan, cadho allana way mutaysanayaan. walaa nastatiicu dalik, cadho allana ma karno. indhaha iyo dhagaha qulubtu inay noo baxaana waynu jecelahay. waxyaabaha markaa dadku ay la indhabeelaan, ay la dhagabeelaan, ee nacdasha ilaahay ay ku mutaystaan ayay taasi ka mid tahay. ummadaha diin la-aanta ku sugani ma xidhiidhiyaan dadka qaraabada ah. marka idan faa'iidooyinkeeda waxaa ka mid ah xidhiidhkeedu xidhiidhkii ilaahay buu noqday. waxaa sii caddaynaya macnaha aayadda oo uu nabigu ku fasiray calayhi salaatu wasalaam xadiid saxiixi muslim ku sugan min xadiidi abi hurayra. wuxuu nabigu uhi calayhi salaatu wasalaam ilaahay khalqiguu abuuray markuu dhameeyey ayaa riximku istaagay. alraxim, rixim iyo raxim bay kala yihin. riximku waa makaanka dumarka bikasri raa, raximka bifatxi raana waxa weeyaan waa qaraabadii. qaraabadii baa istaagto ilaahay muuqaal u yeelay, way hadashay. dabeetana waxay leedahay hada maqaamu alcaa'idi min alqatiica. ilaahay halkan aan taagnay waxaan isu taagay waxa aan kaa magan ahay oon magan kaaga ahay in la ijaro. ilaahayna wuu soo gaabiyo waxau ihi miyaanad raalli ka ahayn an asila man wasalaki wa aqdaca man qatacak. miyaanad raalli ka ahayn inaan xidhiiyo cidda ku xidhiidhiso oo aan jaro cidda ku goyso. ilaahay ugu filan bayt ballankaasu ilaahay u qaado. nabiguna calayhi salaatu wasalaam waa kala aayadda akhriya suuratu maxamed ku jirteen markii dhaweyta akhriyay. taasaa daliilu ah inay tahay qaraabadu dhinacyadaa kala duwan. waxaa caddaynaya ama aynu ka fahmaynaa qowla allahi tacaala fi suurati lfurqaan. alla wuxuu uhi wahuwa aladii khalaqa min almaai bashara fajacalahu nasaban wa sihra wa kana rabuka qadiira. ilaahay waa ilaaha bani aadamkiibuu ka abuuray biyo yar. biyo yar buu ka abuuray. jidhka aad arkaysa quruxda badan candhuufta yar baan ka sameeyey baa ilaahay wi. markaasaa waxaan ka dhigay nasaban wa sihran, tol iyo xidid baan ka dhigay ilaahay wi bashar. marka waawul cadf sida ay tilmaamayso labadii shay xaggii xukunka inay siman yihiin bay tilmaamaysa. lianna alcadf yufiid altagaayur waltamaathul. altagaayur fi dawaat waltamaathul fi licraab walxukm. la cadafkii wuxuu faa'iideynayaa labadii shay daat ahaan haba ku kala duwanaadaan laakiin inay siman yihiin xaggii xukumkii xaggii icraabka. marka ilaahay wuxuu ka dhigay khalqigii u abuuray tol iyo xidid si ay isu barbar yaallaan. marka kan walaashaa dhashayna dil, ka seedigaana dil oo goy, kan kalena xidhiidhi maya. musalaxa qur-aaniga iyo erebixinta qur-aanku saasuu isu barbaraya. nabiyullaahi maxamed sala allahu calayhi wasalam isaguna sidaas uu dhaqangeliyo ummadda islaamku la hadla wuxuu ihi masar marka aad furataan iska hagaajiya dadkeeda halkaa jooga. waxa aan ku leeyahay nasab iyo sabab. nasabkuna waxa weeye hooyadii nebi ismaaciil dhashay ee haajarada qibdiyiinta ahayd oo halkaa ka soo jeeda. sababkuna waxa weeye maariyat alqibdiya. halkaa xididna waan ku leeyahay masar oo maariyo addoontii nebiga ahayd calayhi salaatu wasalaam inankiisii ibraahim dhashay ayaa halkaa ka soo jeeda. waa intee qaraabadaas intee in leeg bay isu jirtaa. ummadduu nebi maxamed wax fahamsiinayaa calayhi salaatu wasalaam.